السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل توعنا وناسن قبله سودا واقع كسودا وجهنا كيد حمد الدكتور ما تمرتي بقى يجوكته مرتي عادي إيش شرف بدن بقى يجوكته ما أنت ما شاء الله سودا واقع قعفرن كسودا واقع شلو حين يسودا روتين ما إن شاء الله هدو إلهي هذا للرجال تعرفين يعني يسودا دونا قل كاني تليجرام كا يو ماشو نمرايو waxyaalaha aan go'aansaday inaan ka wada shaqeyno 3 bilood oo soo socdo nafteyda iyo naftiinaba ayaan rabaa inaan la wadaago oo inii sheego iyo sida aan u wada shaqeyn doono way telegramka kaliya iguma filno kaligiis soo waxaan ku talagalay inaan halkaan iiga soo sheego inay imaado hadaba soo dhawaada kuna soo dhawaada channelkayga waxaan rajaynayaa muuqaalkayga ila channelkan iyo subscribe gareedid way aan telegramka u sameeyay maxaa shuruudaha telegramka ku xiran maxaa ka wada shaqeyn doonaa ayaan rabaa maanta inaan ka hadalno hor telegramka waxa u sameeyay nafteyda iyo naftiinaba inaan isbedel nafad ku sameysano inaan mataqaanaa noqono hooyooyin Soomaaliyeed oo horumar gaara laakiin horumarkooduna aysan noloshooda uusan saameyn macnuhu ma aha hadaad horumar gaarto isku filnaatid inaad noloshaadii hore aad adigu mataqaanaa qaladkeeda yeelatid inay dhibaato ku imaato si kasto horumar u gaartid si kasto u tilaabsatid waa inaysan saameyn gooniya aysan adigu kugu yeelan soo marka horumarkaagu yuusan noqonin Soomaalidu waxay ku mahmaahayeen qaldanaan haysanaa gabadhu markay wax barato waxbarashadeeda iyo horumarkeeda gurigeeda ay dumiyaan macnuhu ma aha yuusan ka noqonin taa adiga waxa laga yaabaa markii aad horumartid oo maskaxdaadu ay korto in isbedel qofeed uu kugu imaanayo of course qofkii aad wada nooleedeen adigu is arkaysiin adigay saaxiibka waa is arkaysiin waxa noqon doonta qof maskaxiya u koray laakiin kuriimadaas aad kortay macnaheedu maaha inuu gurigaaga ama saaxiibada ama familygaaga ama walaalaha uu saameyn ku yeesho ragga waxa uu saameyn ku yeesho ragga Soomaaliyeedna inta badan ee bulshada Soomaaliyeed maqlaan dumar ayaa meel isugu tagay waxay naga fishaan shar marka anagoo guriyaheena haysana ubadkeena haysana ayaa hadana waxaan rabaa in horumar gaarno ay hooyada Soomaaliyeed noqoto hooyo aftile hooyo faadil noosh waxay dhan hooyo qiimo leh hooyo hadalkeeda oo meel gaaro hooyo aan gurigeeda marti ka ah hooyo awoodo maanta hadii marxalad kasta ku soo korto inay ayadu ubadkeeda iyo gurigeeda ay dhexda u xira karto taasna waxay ku imaan kartaa inaad noqotid hooyo maskaxiyan iyo jiriin horta marka hore caafimaad qabta marka labaad inaad noqotid hooyo danteeda garanaysa oo taqaana waxa u fiican iyo waxa u xun labadaas maalintii aad garatid wax kale oo maalinta dadkan waxay jeclaan waxbarashada waxaan jeclaan lacag sameeyno waxaan jeclaan qurux badnaano intaasoo waxay hoos tagaan ay u ag imaadaan marka ay hooyadu noqoto hooyo maskaxiin iyo jiriin isku filan oo isku filnaansho gaarta soo marka ma wax baran kartaa waxa wax baran kartaa marka adigu naftaada taqaan horta anigu maxaan baran karaa maanta anigu dhakhtar ma noqon karo because dhakhtarnimadu kuma fiicin macallimad waa noqon kara iskuul oo arday wax waa bari karaa laakiin dhakhtarad ma noqon karo soo hadda social work aan qaatay sababta u qaatay waxay tahay cilmiga bulshada waa ku fiican ummadda wax u sheegooda laakiin kuma fiicni inaan noqdo mataqaanaa qof qaliin sameey karo dhakhtar koow aqoontis kama soo bixi karo oo fahankayga maskaxeed heerkas ma gaarsiisno labana awoodaas ma lihi soo marka taasi mar goormay ma kartaa marka adigu naftaada isku baratid marka adigu sugtaa qofka aad tahay soo waxaan rabaa marka hadda labada program oo inay dooray yaana hadalka ugu badan wuxuu yahay dhaqaalaha iyo barashada nafta ina horta nafteena barano ina noqono goormay nafteena barana gabadha maanta waxay u soo qortay telegramka qaybtiisa xamdiyay goormaad ogaato qofka aad tahay goormaad isbartay maxaas kugu dhaliyay anigu waligeeyba markaan yaraa waxa ahaa qof hadal cad horta hooyaday ilmaheena gurigeena jooga eedaday aniga ugu dil badnaa eedaday soo kortay waxa ugu dil badnaa waa ugu hadal adkaa waxa ahaa qof hadalkiisu cadiya waxa ahaa qof su'aal badan waxa ahaa qof wax raadis badan ayaa ahaa jira marka taas ayaa marka waxay keenaysaa isbedelku inuu yimaado of course kuriimadeedina way soo qaatay markay ku soo koriso hooyo ku bartay kaliya dantaada inaad aqootid hooyaday haddaan tu imaado waa lay soo dilay waxay dhigi jirtay xagee lagugu soo dilay dugsiga quraanka maya madrasada lagugu soo dilay maya xagee lagugu dilay meel hebel maxaa ka doontay meesha lagugu soo dilay adiga maxaad ka doontay waan aad dii camal la'aan baa tahay qof aan camalkiisa dantiisa garanayna dii cid kasta baa dilaysa baga marka maxaa lay baray halkaas marka yaraa in lay baray in qofku dan la'aan uu meel kasta u taagnaadahay dee uu yahay qof iska lunsan halkaas marka soo bilaabatay in madaxa waa aqli badanahay alla ilaahay gabdhaha Soomaali badan oo aqli badan oo jiro
aqoonna gabdho badan oo aqoon badan jira laakiin just koriimadeedii yaraanteedii lay koriyay ee haddana hooyada uu imaado inuu dhiigaayo ee dhigi jirtay inta dhiigan ka daadiday meeshay kaaga daadiyeen maxaad ka doontay ayaa waxay u kaliftay inaan meelaan dantayda ahayn danta waxta ay baqdin i gasho isla waxaan maxaad u qaban dantaada maahane marka isbarashada nafeed waxa soo hoos gali doona qurxinteena caafimaadkeena diinteena horumarkeena tarbiyada ubadka qofka inuu si guud mis u koro oo agtiisa agagaarkiisa waxyaalaha yaa dhan ka koro bi'ada oo joogo ka koro ayaan sameey doona qodobka labaad oo inii doona waa dhaqaalaha maanta xarkay gabdha soo qoraa dadku isku dhaqaala ma alxamdi ee sidee ku fakartay waxaan ku fakiray gabar kasta wixii ay haysto ha dhaqaalaysato dadkeena waxa laga yaabaa maanta inaad qof $100 siidid oo $100 u arko inaysan macno ku fadhin qofuna $100 siiday ayaa waxa laga yaabaa inuu 50 isticmaalo 50 oo maalgelin ku sameeyo qofna waxa laga yaabaa inaad $100 siiso oo 100 isticmaalo marka macnuhu maaha markaan dhaqaale inuu dhaqaaluhu wax weyn lagu sameeyo laakiin dhaqaalaha waxa lagu sameeyaa qofku ayeeyada wixii dhihi jirtay qof wuxuu haysto garawaaye qiimaheeda wax uu ka maqan qiimahooda ma garanayo marka shayga aad haysatid $1 adigu aad haysatid haday la xawjecla kaaga jirto $1 ayaa sintiye meel ka dhiga kartaa soo macnuhu maaha inaan wax weyn dhaqaaleysano laakiin macnuhu waxa yahay inaan gabdhaha Soomaaliyeed bartaan waxa aad haysto wax meel ka dhigo naftaada ku tasho xoolaha adiga ninkaagu uu leeyahay waxaad arkaysaa in waxa jiro dunida marayo maal dhow tiri gabadha Soomaaliyeedi gurigeeda markay ka tageys waxay kala tagtaa boorso baati u badan waa run aniga nin taajir ah qaba hay taajir ku qaba laakiin taajirka xoolihiisa dad uma lihid aniga aabaheeya taajira aabaha waa taajir laakiin waa adiga aabaha ee adigi maaha hooyadeeya taajirda hooyada taajirnimadeeda dhaxal u bad ku leedahay maanta dhimato marka xoolaha hooyada ma lihid soo marka hooyada xoolaha ay leedahay iyo ninkaaga taajirka xoolaha uu leeyahay ka faa'iideyso intay gacantaada ku jiraan ka faa'iideyso hatta hal problem ayaad maanta haysataa laakiin kun problem ayaad maanta haysataa waxa laga yaabaa dhigeysid dhaqaal daraayo heeso ninka ay ugu xun familka ay ugu xun saaxiib baxmaysta kun problem aad maanta haysataa laakiin haddii aad hal maalin caafimaadkaaga aad weydid kunkaas problem waa tageen halkaas problem ku haysta bal u fiirso maanta waan caafimaad qabaa laakiin kun problem ka cabaan haysta laakiin maanta haddaan caafimaadkayga waayo uu tago kunka problem xasuusan maayo taasoo kale waa marka maanta lacag baad haysataa aad dhaqaaleysan karto meel dhiga kartid laakiin biri hadaad weydid waxa laga yaabaa $1 maanta aad yasaysid inuu $10 kala qiimo badnaado waqtigaaga maaray naftaada maalgeli xoolahaaga si wanaagsan u isticmaal gabaryaha Soomaaliyeed waa ogahay inaan ku soo koray dhaqan adag wili uu adag yahay waxaan ku soo koray giltinimo aad iyo aad u badan dib marka u fiirna baagurun mabalihinba baagurunkeenu waa ooyin iyo rafaad iyo qax iyo problem laakiin annagu maanta jaanisi aad u badan haysanaa oo bulshadeena ku bedeli karno anigu isku bedeli karno inta aad ka fakirin dadku inay wanaagsanaadaan adigu qof wanaagsan noqo ubadkaaga wanaaji gurigaaga wanaag ka soo saar taas ayaan kugula talinayaa waxaan rajaynayaa inaad muuqaalkayga ilaa garido channelkayga iyo subscribe garid muuqaalkan waa muuqaal aad iyo aad u qiimo badan waxaan jeclaalahay gabar kasta oo Soomaaliyeed inay ogtahay qofnimadeeda iyo danteeda idina ma rabto qof lunsan idina ma rabto qof qiimo aan lahayn idu haday qof lunsan rabto Soomaaliya ayaa duwaheed ku istaagi lahayd qani baan nahay macdan baan haysanaa diin baan haysanaa isku jinsiyad baan nahay amba dawlado kala go'an dadka marka hadda la joogo Norwejiga ihi muslim waa gaal alle ku kufriye haddana wadankooda barwaaqada iyo roobka iyo nimcada Ilaahay siinay saadqana waa cadaalada ay faleen ayagoo gaala ay isku cadaalad faleen anagoo muslina ayaa ummadii cadaalad darro nafta uga goynay qabiil baan isku riixayna qof kasta qof kale duulaan ku yahay way ugu tahay shaydaankaas ka naarno telegramkayga waxa idin furi doonaan su'aalihiina weygi 2 maalin waxaana subax kasta soo dhigi doonaan dhiirigelino hurdada ee kici doono iga faa'iideysatay dawaadantaada iga faa'iideysa way isku weydana anu kulli waa isku kaadaya waxaan ku rajaynayaa inay maalintu ku wacnaato waxaan ka codsanaa muuqaalka ilaa gari channelkan iyo subscribe gareta muuqaalka kulmeeno waxaan hamdi koora kule nabadiina assalamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh